oo isagu sheegtay inuu yahay hoggaan dhaqameedka ama suldaanka qurbajoogta Soomaalida. Suldaanka ayaan haddaba kula kulmay magaaladan Hargeysa in muddo uu joogay sheekadiina dhex martayna waxay ku bilaabantay sidan. Xaaji Axmed Diiriye Guuleed ku soo dhawo barnaamijka Hareeriya Hargeysa iyo telefishinka Universal. aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdisalaan waana idin mahadnaqayaa waana ku dhawahay waatay su'aasha ugu horreysay ku weydiinaya waxa weeye xilkan aad hayso suldaanka qurbajoogta marka hore ma mid lagu caleema saaray baayo lagu gartay mise waa mid aad adigu isu garatay Cabdisalaan arrinta ayada markaan kaaga dhawaajiyo ama aan kaaga warramo markii hore waxaan ahaa odayga United Kingdom ee Soomaalida u jooga meel kasta oo Soomaalidu ay joogto South iyo North oday baanu ahaa markii taariikhdu ahayd 2014 ayaa waxa la ii doorto Soomaalidu ii garatay bacdama aan markii hore ahaa oday Soomaalidu meel kasta ay joogto qadiyaheeda xalila oo wax kastaba loola yimaado waxay ii garteen shacabka ku nool Soomaalida ee ku nool United Kingdom inay ii doortaan suldaanka qurbajoogta Soomaalida waa suldaanka qurbajoogta Soomaalida ku dhaqan wadanka Britain markaa iyo in ilaaliya intay xukunto boqorada Ingiriisku markii la weydiinayay in ilaaliya intay boqorada xukunto iyo intay xukumi jirtay ayaan suldaan ka ahay waa tahay inta badan xilalka sidaasa Soomaalidu iskuma wada raacsana ilaa imika cid kugu qabsatay ma soo baxday xaaji kulli bari dhaweed waxaan maqlayay in Kanada waxaan ka ahay suldaan baan ahay waan maqlayay ya way anigu ma dadka suldaanka rasmiga ah oo umadu i dooratay marka inta ka baxsan meelihii boqoradu ay ka talin jirtay ama wadamadan barwaaqo sooranka la isku yiraahdo Soomaalida ku dhaqan iyaga wax xilo kuma lihid miya waan ku leeyahay meel kasta qurbajoogta soo suldaankoodii baan hay laakiin maalintii su'aasha la weydiiyay waxa la yiri intay ku siman tahay sandaladaada waxaan in ilaaliyo inta boqoradu xukunto ama ay xukumi jirtay hase yeeshee de meel aanay boqorada Ingiriiska calanka Ingiriiska taagnaan jirin adduunka ma jirin koona ilaa koona markaa weey waa koona ilaa koona sandaladaydu duruufo kala duwan iyo wadamo kala duwan iyo markaa dadka Soomaalida ku nool yihiin sidoo uga warhaysa ula socotaa dadkaaga dad badan baan wada xidhiidhnaa meel walba dadka jooga waan wada xidhiidhnaa nabadgelyadooda sida ay ku nool yihiin iyo sida ay ku dhaqan yihiin wixii tala ah halka aan ka geysan karana waan ka geystaa in qaaradu wala ma tagi kareen maadaama imika sidaan ka warhayo in muddo aad halkan ku noolayd oo magaalada Hargeysa aad ku soo noqotay halkanna ay ahaan jirtay maxkamad Ingiriis miyaa ku halkan joogaana ku jiraan markaa qolada halkan joogtana de aanun baa xukuma qolada halkan joogtana waa meel dhulka Ingiriisku xukumi jiray boqorada qolada ana suldaano ah oo salaadiinta faraha badan le marka Xaaji Axmed halkan jooga ama Suldaan Axmedow miidaan iyagana isku dhicin oo aydan iskaga hor imantaa iskuma naan dhicin waxaan ku yiraahdaa aniguna waxaan ahay suldaanka qurbajoogta idinkuna waxaad tihiin suldaanka qurbajoogta laakiin anigu baa dusha ka xukuma mar haddii dhulkan aan maanta aynu joogno dalkii boqorada xukumi jirtay uu yahay waayo anigu waan ka sareeyaa suldaan reer isu soo caleema saaray oo haddii biidankeeda leeyahay reer hebel baan xukumaa laakiin halkan oo kaliya markaan noqon maysa Soomaaliyana qudheeda maadaama waqtiyada qaar Ingiriisku uu ka talin jiray oo Kenya uu ka talin jiray meelaha soo dhamaaday ku hoos imanayaan meelaha soo dhamaanay hoos imanayaan meel ilaaliya meeshii calanka Ingiriiska taagnaan jiray boqorada Ingiriisku xukumi jirtay arrimaha ugu waaweyn ee markaa Suldaan Axmedow aad xalliso ama dadku kula yimaadaan maxaa ka mid ah waxa ka mid ah ninku horto hadduu odayna yahay waxa qoonna yahay waxa laaleeyay wixii qadiyad umada Soomaaliyeed dhinac kastaba ha ahaatee la soo gudboonaata wixii aniga waajibigu awaan xalilaa gartay laakiin de salaadiinta kale arrimo reer bay ku shuqlan yihiin oo muramada reeraha soo dhaxgala iyo arrimaha sidaas ay la xaalaan adigu hawlahaad qabataa maxay anigu hawlahan qabtay waxa ka mid ah halkan imanka sida aad sheegtay de salaadiin bay leeyihiin oo reeru leeyihiin iyaga xalila wixii problem ah halka ka dhaca maanta wadanka gudihiisa anigu se waxa laaliyay wixii qurbajoogta wixii dibadda ku maqan ama halkan ha ahaato ama xagga ha ahaatee ay gala gudboonaaday ay la yimaadaan baan xalilaa salaadiinta halkan jooga ama geeyiga Soomaalidu sidoo ka warhayno de cuqaal bay leeyihiin cuqaasha markaa arrimaha qaar kood u fududeysa adigu ma leedahay cuqaal Suldaan Axmedow la taliyaal baan leeyahay rag badan oo la taliyaal baan leeyahay oo de barnaamijku markuu sidaas oo kale u dhaco ila xalila
oo aan u xil saaro xaggay joogaan markaa meel walba waa joogaan kuma koobna meel kaliya waa badan tahay furuucdayda iyo dadka ila shaqeeya suldaan axmedow markaa xilkan aad sheeganayso dadka qaar baa waa ka mid kaftana oo aad ku kaftamaysid dadka sidaa qaba maxaad ku odhan lahayd wallaahi waxaa ka odhan horta waa nin iyo aqoontii cabdisalaanow nin walibana aragti buu leeyahay dee waxay la tahay nin waliba aragtiisidiisa unbay ayuunbaa ku filan inta aqoontiisu tahay haye cidda u haysata baan ku odhi in arrinkaasi uu yahay arrin kaftana oo weliba kaftan magaalo ah maxaad ku odhan lahayd dee waxaan ku odhan lahaa horta qofka doonaya arrinka sandaladaydu inay hadal ku jirto isla sandalada suldaanku hadal bay ku jirtaadow idaacadaha iyo youtubeyada iyo websaydyada gal halkaa iga daawo xafladii lay dhigayay shacabkay doortay laakiin shacabku sidaad sheegtay ha ku doortaan oo kuwa landa jooga ha ku doortaan kuwa kale ma wakiilay soo dirteen meel walba wixii joogay ee halkaa matalayay wakiilay soo dirteen oo yidhaahdeen congratulation markii la doortay waa tahay oo wakiiladu shirka ka soo qayb galeen rag badan baa ka soo qayb galay waa tahay muddada aad xilka haysay imika sidaad sheegaysay ilaa 2 sannadood ku siman howlaha ugu waaweyn aad qabatay maxaad ka sheegi lahayd dee horta waad ogtahay cabdisalaanow oo qurbaha mashaakilka ka taagan adigu waad ogtoo lagaga warramaayo waa degan tahay inta arrin ama reer isqabtay oo dumey aan dib u dhisay ama carruur soomaali ahoo ay social worker qaateen aan ka soo celiyey dee kuma odhan karo waa mid iyo laba haye ma oday ahaan baad arrimaha u gelaysay mise suldaan ahaan odaynimo iyo suldaan ahaan labadaba waan u gelayay mar haddaan dee si teetalkii ummadda soomaaliyeed qurbaha joogtay meeshii aan tagaba waan ha laakiin dawladda ingiriisku taa kuma aqoonsana xaaji axmed sooma ima aqoonsana laakiin waxaan ku gelayay dee magaca soomaalida oo odaya markaa oo dee haye ya waaye waxaad tidhi tii qoysaska iyo carruurahan waalidkood laga qaaday iyo arrimaha kale ugu waaweyn ee aad gasho maxaa ka mid ah dee waxaa ka mid ahaa waxlaaliya wixii soomaalida hee isqabta iyagana waan dhex gelayo arrinkooda waan dhammaynayey waaye salaadiinta geyigan soomaalida jooga tusaale ahaan magaalada hargeysa oo kale howlaha ay qabtaan waad la socotaa oo waad ka warhaysaa maxaa ku kala duwantihiin markaad tahay suldaankii qurba joogta waxaanu ku kala duwannahay horta qoladan iyaga hawsha iga badsada waayo mashaakil waaweyn oo dee aan qurbaha ka dhicin ayaa halkan ka dhaca oo dil leh oo kufsi leh oo foolxumo leh dee waxaasoo dhan salaadiintana ayaa xallisho oo dee hawsheeda qaabilsan waa tahay adiga ma ku ogyiin inaad tahay suldaankii qurba joogta salaadiinta badidooda waa ii ogyihiin de intaanu isnaqaano ama intii magacayga haysaa ama aragtidaydaba ama tvgaba iga daawatay hay meanay qudhoodu ka yara xumaanay suldaan axmedow mar haddii racyadoodii haddii qaar ka kaxaysanayso kuwii qurba joogta ahaa aad gooni ula baxaysid waxay la tahay ninka aqoon leh cabdisalaan oo arrintaa inaanu ka xumaanayn waa tahay nin odaya baa tahay xaaji axmedow ama suldaan axmedow dhaqankii miyigana aada u yaqaana ma islahayd mar baa dhici doonta uu soo baxo suldaanka qurba joogta soomaalidu hore ugumaan fekerin laakiin intii ingiriiska aan tegey baa arrinkaasi igu dhashay weliba sanadadii dambe ee soomaalidu cagta igu badisay meel walba xaaji axmed towdaa la iga guree la iga yeedhay ee meel walba mashaakilkeeda aan xallilay ayaa arrintaasi anigana igu dhalatay shacabka united kingdom deganna la yidhi ninkan ka maarmi mayna aynu boqorno waa tahay boqornimadaadu markaa ma mid muddo cayimo ku simanba sida de xisbiyada xaggaas oo kale mise waa mid abadaa waa rasmi weeye waa mid rasmi ah loo noqon maayo dib loogu noqon maayo waay waxaa kaloo aan jeclaan lahaa kuwa halkan maxaad ka baran kartaa ama adiga maxay kaa baran karaa de horta qolada xaggani anigu dee waxaan ka baran karaa horta dee waa salaadiintii rasmiga ahaydee reerka ama beelaha marka iyagu horta waa sandaladii rasmiga ahaydoo toodu mid lagu murmi karo ama laga wada hadli karo qurba joogtu miyaanay ahayn markaa xaaji axmedow horta aan taa kuu dhammeeyo cabdisalaan toodu mid laga wada hadli karo ama hadal geli karta maaha waa mid rasmiya soo garan mayse anigu inta qurbaha joogtay dee qaxoontigii intii aynu qaxanay dabadeed ayay taydu soo baxday laakiin dee sandaladahan hore waxay ahaayeen qaar raagadoo dee abtirsi lahoo hiddo iyo dhaqan iyo soo lahaa waa tahay xaaji axmedow maadaama sidaan ka warhaya aad xaggan u badan tahay sabanadan dambe hawshaadii xagga ayaa qabtaa wakiillaan leeya wakiiladaydii baa joogo la taliyaashaydii
wixii warana waa layla soo socodsiiyaa kolba ka dhaca waddanka gartay marka waxaad la mid tahay suldaan raaciyadiisa halka joogto qurbaha u dhoofay oo kale ha meel alaale meeshii aan tagaba dee raaciyadeydii waa joogtaa shacabkaygii ya goormaad ku tala jirtaa markaa inaad ku noqotid magaalada London haddii aan laydma dhaqsaan jecelahay inaan dib ugu laabto dalka wallaahi dee Londonna dhowr iyo 20 sannadood baan Cabdisalaan ku noolaa tanina waa tii aan ku dhashay aan ku barbaaray marka halkaa intii aan joogayna sharaf iyo ciise baan ku noolaa aniga iyo shacabkayguba maantana nabadgelyo iyo sharaf iyo ciise baan ku noolahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin haysoo lama odhan karo sidaa sheegay maadaama muddo aad xaggan joogtay imika shacabkaagii waad soo dayacday maan dee sawnigaa ku yidhi Cabdisalaan wakiilaan xaggaa ku leeyahay waxaa wakiiladu kaalintaadii ma buuxinayaan kolley dee dowladda waa adiga arkadoo tan aynu maanta joognaaba president iyo vice president bay leedahay markaa madaxweynuhu maqan yahay dee madaxweyne ku-xigayaashii baa jooga aad iyo aad baad umahadsantahay aad baad umahadsantahay Cabdisalaan adgii TV-ga iyo